الله عليهما قصدني وقصدي أفراد وحا عنواني هالكدقوا قبضن أو كلا هي قصة الأحياء ayaad ka dhadhansan doontaa kana carfin doontaa kana fahmi doontaa kuna raaxaysan doontaa ujeedada qisadana aad kala soo dhaxbixi doontaa duruus adduunka ku anfacda biidnillaah aakharana ku anfacda qisadu waxay ku saabsan tahay saxaabi kamid ah saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam qisa dhaxmartay asaga iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo reer uu gabar ka doontay ii ogolaada marka hore inaan saxaabiga magaciisa idin sheego Julaybiib waxaan filayaa dadka talabatul cilmiga ah inta badan way yaqaanaan Julaybiib ilaahay baa xikmadiisu subxaanahu wa tacaala qofasibu u abuuraa abuurka ilaahay oo dhanna waa qurux laqad khalaqna al-insaana fi axsani taqwiim laakiin saxaabigani ilaahay wuxuu u abuuray subxaanahu wa tacaala qaab ay bini aadamku ay dhahaan waa laga qurux badan yahay hebel maalin maalmaha ka mid ah wuxuu nabiga arkay asagoo murugaysan nabiga ayuu u yimid ama nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam asagoo murugaysan buuna arkay wuxuu rasuulka ilaahayow waxaan qiray shahaadati an laa ilaaha ila allah waxaan kaloon qiray wa annaka rasuulullah adiga rasuul ilaah inaad tahay baan qiray aniga qaabka ilaahay ii sameeyey foolxuma yacni qaabka aniga ilaahay ii sameeyey saas asagoo isku lehay aan qurux badnayn qaabka aniga ilaahay ii sameeyey ma ii diidaysaa inaan jannada galo su-aal cajaa'ib badan nabigu wuxuu yidhi maya sala allahu alayh wasalam saxaabigii wuxuu yidhi haddaba maxay dadku iigu diidaan gabdhahooda haddaba inaan guursado axad ii guurinaya lama arko qof kastoon albaabka ku garaaco rasuulka ilaahayow gabadhiisi waa ii diidayaa halkaa markay arrintu marayso nabigeenna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu yidhi orodoo u tag qoyskaas reer hebel la yidhahda hebel iyo hebel isqaba u tago waxaad ku dhahdaa gabadhiinaan idinka doonayaa gabadhiina ayaan idinka rabaa ku dheh nabigaana isoo diray sala allahu calayhi wa aalihi wasalam kadibna saxaabigii waa soo baxay qoyskiibu u yimid wuxuu yidhi gabadhiinaan idinka doonayaayoo nabiga isoo diray ninkuu ku hormaray oo ninkiibaa wuxuu yidhi marxaban bik wuxuu u qaatay qofka raba gabadha inuu nabiga yahay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam markuu arkay ogaaday oo dareemay inuu u qaatay cidda gabadha rabta inay nebi muxamed tahay sal ly salam Julaybiibna lasoo dirsaday ka rasuul ahaan ayuu yidhi maya u kaadi cidda gabadha rabta nabiga ma aha sala allahu alayh wasalam hee cidda gabadha rabta waa anigee loo raba gabadha ma adigoo Julaybiiba haa anigoo Julaybiiba wuxuu yidhi bal hadda isug aan hooyadeed la soo tashade kadibna hooyadeed buu u tegay qiso cajiiba waaye waaqiceenna soomaali ahaana qayb badan ka waafaqsan wuxuu u tegey xaaskiibuu u tegey odaygiibaa u tegaya wuxuu ku yidhi nabigaa naga soo doontay sala allahu alay wasalam gabadheenni gabadhi intaa way maqlaysaa sheekada gurigay ku jirtaa waxay tiri marxaban bihi ma nabigeenna gabadheenna raba waan soo dhowaynaynaa markaasuu aabbihiina yidhi cidda gabadha rabta nabiga ma aha sala allahu alayh wasalam hee waa Julaybiib kadibna riwaayooyin kale ma cid kaluu waayey iyo kada iyo calaa kulli xaal arrintaasi way ka gows qabsadeen labadaas markii arrimaha la isdhaafsaday gabadhi waa maqlaysay gabadhi way maqlaysay gabadhi baa qolka ay ku jirtay bay ka soo booday markaasee waxay tidhi maxaa jira oo say wax u jiraan waxaa la yidhi sidaa iyo saasay wax u dhaceen waxay tidhi ma nabi muxamed qofkuu ii dooray
miyaad idinku hor istaagaysaan waxay dareemaysaa nebi maxamed qofku u dooray inuu yahay qof khayr badan ayay dareemaysaa markaasaa waxay akhriday wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara culamada qaar baaba yidhi saasay ku soo degtay laakiin aayaddu gabadhu saasay akhriday julaybiib calaa kulli xaal gabadhii waa la siiyey mar hadday gabadhii noocaa ay timid ay tiri gabadhii waa la siiyey nabigu waa ku farxay sala allahu caleyh wasalam julaybiibna waa u duceeyey maxaa yeelay kaana faqiiran wa damiiman nin lagana qurux badan yahay haddana aan waxba haysanin oo cid gabadhiisa u guurinaysa aynan jirin buu ahaa bal qisadaa ila dhegaysa ayuha alaxiba uxibukum fillaah maanta gabdhaha waxaan iskugu diidnaa wuu foolxu yahay waxaanu iskugu diidnaa xoolo ma haysto waxaan iskugu diidnaa waa reer hebel ba ugu daran reer hebel ayaa ugu daran iyo tabaqaadka dadku inay iskala sarraysiiyaan qisada marka waa qiso cajiib oo hoyaa badane waxaan rabaa inaan ku soo aruuriyo oon ku soo gebagabeeyo julaybiib oo diyaarsan gabadha inuu dhistana doonaya suuqa jooga oo wax gadanaya ayaa wuxuu maqlay yaa khaylaallaahi irkabi jihaadkii uxud ayaa la iclaamiyey in la aado kadibna wuxuu is yidhi war ma jihaadkaad aaddaa mise gabadhaad dhisataa nabiguna sala allahu alay wasalam wuu ogaa hadduu si cad u soo istaago inuusan oggolaanaynin oo nabigu horay wuxuu yidhi ninka guri uu qabyo ka yahay oo saqafki saaranaya iyo qofkay gabadhi u doonan tahay midna yuusanna raacin wuu isqariyo wuu isduuduubay dagaalkiibuu dhinac ka galay markuu dagaalkii uxud dhammaaday ayaa la yidhi yu nabigu sal ly slam yaa maqan yaa dhintay yaa la dilay hebel iyo hebel iyo hebel bal ku laabta hebel iyo hebel iyo hebel anu nin baan tabayaa ayuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam anigu nin baan tabayaa war bal ninkan bal cidda aad magaceeda sheegteen may cid kale ma garanaysaan maya haddaba anu nin baan tabayaa waa maxay julaybiiban ninka julaybiib la yidhaahdo ayaan tabayaa kadibna waa la raadiyey waxay soo heleen asagoo dagaal adag galay 7 nin oo gaaladii la dagaalamaysay quraysheed ahayd dilay kadibna ay dileen nabigu sala allahu calayhi wasalam intuu istaagayba wuxuu yidhi qatala 7 huma qataluuh haadaa minii wa ana minhu 7 dilay kadibna way dileen kani julaybiib anigu iga mid yahay aniguna asaga ayaan ka mid ah kadibna nabigu sal ly salam asaga ayaa gacmihiisa shariifadae qiimaha badan ayuu nabigu ku qaaday sala allahu calayhi waali wasalam ilaa la geliye laxdigii iyo qabrigii la geliyey ayuha alaxibatu fi llah uxibukum fi llah qisadaa maxaad ka fahamteen arju inuu qof walba qisadaasi macaanida ay xumbaarsan tahay inuu dhuuxo intaanu kaga kulmayno xalaqada 5aad waxaa idinkaga tegayaa astawdicukum allah wa uxibukum fi llah wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu